Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal ku soo dhowaada Seto Academy. Magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe dheh. Maanta waxaan ka hadlaynaa haddii Ilaahay yiraahdo Norton's Theorem. Norton's Theorem waxaa la soo saaray 43 sano kadib markii la soo saaray Thevenin's Theorem. Fikraddii Thevenin's Theorem ee ku shaqaynaysay oo waxyar laga bedelay waaye, waxaana soo saaray nin la yiraahdo Norton oo u dhashay waddanka America ama Maraykanka u dhashay. Ninkaas ayaa wuxuu ka shaqaynayay Bell Laboratory, meel la yiraahdo oo researchiga sameysa, macnaha cilmi baarista sameysa ayuu ka shaqaynayay. Sidaa darteed wuxuu ikhtirac labaad ku sameeyey Thevenin's Theorem. Sida aan hore u soo baranay example-ladii iyo theory-gii Thevenin's Theorem saan hore uga soo barannaba, Thevenin's Theorem wuxuu sheegayay in circuit laba af leh oo ah circuit linear circuit ah oo laba af leh A iyo B leh in lagu soo gaabi karo voltage source oo series la ah resistance. Voltage source-ga waxaa loo baxshay V Thevenin, resistance-gana waxaa loo baxshay R Thevenin. Sidaa darteed asagoo raad raacaya aragtidaas buu wuxuu asna dhahay Norton Theorem wuxuu sheegaa in circuit ka kooban linear ah, macnaha circuit linear ah oo leh laba terminal, sidoo kale laba terminal A iyo B leh waxaa lagu bedeli karaa uu dhahay circuit u dhigma oo iyadoo la tixgelinayo circuitkaas u dhigma waxaa loo tixgelinayaa current source. Meeshii kii hore ahayd voltage source baa kan current source loo tixgelinayaa, waxaana current source-gaas loogu magacaabay IN, waa Norton current, oo parallel la ah resistance oo ah RN. Kii hore maxay la ahayd? Series la ahayd. Voltage iyo resistance-gu series ahayn, laakiin hadda current-ga iyo resistance-gu waa parallel. Halka wuxuu dhahay IN ay tahay short circuit current. Short circuit current through terminals. Tusaale, sawirkan haddii multimeter aan soo qaato ee aan inta uga xiro, haddaan multimeter soo qaato ee inta aan multimeterkii ku xiro halkan, multimeterkan akhriskiisu wuxuu sheegayaa short circuit current, macnaha currentigii halkan joogtay iyo currentigii halkan joogtay baa waddo loo furay, waddada isku soo xirmaysa. Short circuit current oo loo yaqaano ISC ayay la mid tahay. Marka IN waxay la mid tahay ISC oo ah short circuit current ayay la mid tahay. Halka wuxuu dhahay RN-na ay tahay input equivalent resistance. Waxa waaye uu dhahay RN-na waa input equivalent resistance. Input equivalent resistance waxaa laga wadaa dhammaan circuitkan linear-ka ah resistance-ga uu leeyahay marka off laga dhigo inta source uu yahay, ama current source ha ku jiro ama voltage source ha ku jire, off inta laga dhigo baa waxaa la raadinayaa total resistance. Total resistance-gaasana waxaa loo yaqaanaa RN. Sidaa darteed in markii la isku fiirsho Norton Theorem iyo Thevenin's Theorem, marka la isku fiirsho RTH waxay la mid tahay RN, labadoodu waa isku mid. Kii hore sidii looga shaqaynayo oo la dhahayay dhammaan sourceska xir kadibna total resistance raadi baa tana la dhahaya. Sidaa darteed waa isku mid, waa kuwana input resistance at the terminals, macnaha waxay la mid tahay input resistance-ga oo soo gelaya labada terminal markii independent sourceska la damiyo, turn it off laga wada dhigo. Intaasuu sheegaya. Marka circuitkan oo linear circuit-ka ah waxaa lagu bedelayaa IN oo current source ah waa tan ahaan, iyo
Rn oo input resistance ah labadooda oo parallel ah waxaa lagu bedelaa circuitkan two terminalka oo badan lagu bedelaa. Sidaa darteed in see loo helayaa sida hadda aan sheegay cabirka meeshan waa ku heli kartaa adigoo inta ku xiraya ammeter ku xiraya ama waxaa ku heli kartaa oo kale Thevenin theorem markaan soo helnay VTH iyo RTH markaan soo helnay current waxaa lagu helaa sidaan wada ogsoonahay V oo loo qeybshay resistance. Sidaa darteed waxaan dhahaa In waxay la mid tahay VTH oo loo qeybshay RTH ama RTH na maxay la mid tahay Rn. Sidaa darteed Norton theorem waa qeyb oo isdhahay ninkii Thevenin ahay waa uu ka tegey oo ma uusan muujin buu Norton muujiyey. Sidaa darteed asna loo siiyey theorem gooni ah waayo wuxuu asagoo raad raacaya waa isku wada mid isaga dhan labadoodu waa isku mid laakiin meeshii current voltage source wuxuu ka dhigay current source intaas bas kala duwan yihiin. Marka example-kiisana aad buu usii cadaa doonaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Videogan intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Kaliya waxaa ugu talagalay inuu maskaxdaada galo waxa la yidhahdo Norton theorem. Norton theorem hadduu maskaxdaada galo waxaa ii fududaanaysa inaan si sahlan maskaxdaada ugu shubo exampleska aadna u fahamtid hadhowbaytana aysan kugu adkaan wax walba oo circuit. Aad iyo aad u mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.